bilowgaba wejiga xayawaankan halista ah waa mid laga dheehan karo xal u helidda xisaabaadka wakhtiga dhibaatada. harmacadkani aad ayuu u gaajoon yahay in keyntan laga helo ugaarna waa jar u baahan inaysan ilbiriqsi xitaa qaldamin si hadafka loo gaaro. dhulkani wuxuu u samaysan yahay qaab kala sarrayna sida kanaal ay biyuhu maraan iyo dhulka intiisa sare, waana sida xuduud kala qaybinaysa dilaaga iyo midka baxsadka ah ee nolosha u baahan. dhammaan sagaarooyinkan waxay yihiin kuwa halkan u soo calaf doontay, laakiin xisaabta kama saarayaan in dhulkan uu qodxo leeyahay oo iyagaba lagu cashayn karo galabtan. tanina waa xaalad u dhexaysa nolol iyo geeri. harmacadkan dilaaga ah ma doonayo inuu istuso dhammaan sagaarooyinka, waayo inta badan hardanka u dhexeeya harmacadka iyo sagaarada waxaa guulaysa sagaarada. sababtuna inta badan ma ahan orodkeeda ee isagu waxa uu doonayaa cunto, iyaduna waxay doonaysaa badbaadada nolosheeda. sagaaradani dhanka midig ka muuqataa waa midda ugu dhow ee uu shabeelkani ku baashaali karo, waxaase ay u muuqataa mid in la ku daaqaysa in la isku waardiyeynaysa, waana qiyaasta waxa ficil ahaan dhacaya. harmacadkan dilaaga ah waxa uu qiyaasay in isaga iyo sagaaradan dhul badan uu u dhexeeyo waana uu ka bootiyey, laakiin naxariis kama ahan. isaga ayaa raadinaya waddada guusha, kuna darso waa uu gaajoon yahay harmacadkan. marmarka qaar adiga oo meel fog wax ka raadinaya ayaad meel low wax ka heli kartaa. waxa uu indhaha saaray sagaaro ku dhex lugaynaysa kanaalkiisa. miyay tani noqon doontaa midda uu ku kaaftoomi karo? sagaaradani waxay hadda u jirtaa dhul aan ku qiyaasi karo 10 tallaabo. harmacadkani waa mid ku takhasusay weerarka gaadmada ah, xitaa waxa la yaab leh siduu ugu xisaabtamayo tallaabada iyo si aan shanqartiisa loo maqlin. nasiib wanaag waa ay badbaaday. taasina waa waxa carrada ku sii badinaya xayawaankan dilaaga ah ee aan naxariista lahayn, balse habka keliya ee uu bartilmaameedkiisa ku heli karo waa degganaanta iyo xisaabtanka. hadda waxa uu helay bartilmaameedkiisa, mana doonayo inay ka baxsato, waxaanay sagaaradu u muuqataa mid aan la socon waxa hareeraheeda ka socda, waanay iska daaqaysaa. harmacadkani intaan ka badan ma sugi karo, waayo dulqaadka ayaa ka dhammaaday. maxaa dhici doona? sagaaradan oo u muuqatay mid aad u xawaaro badan waxa ay harmacadkan ku qaadatay inuu 6 sakiin ku soo afjaro qabashadeeda. miyay suurtagal tahay in harmacadkan baahan laga badbaado? nasiib wanaag waa ay badbaaday, sababtuna waa kala sarraynta dhulka. harmacadku waxa uu isku dayey in dhulkan kala sarreeya uu kala dego sagaarada, balse sida la sawiran karo wuu isku keeni waayey in isagu uu dhicid iska ilaaliyo iyo in ugaartiisa uu xafito, waana midda keentay in laga baxsado. aladila ayaa dhinta, laakiin shabeelkani ma doonaynin inuu cafiyo sagaaradan. kanina waa hilib aan weligiis bislaan doonin. haddii aad xiisaynayso muuqaalkan iyo muuqaalo la mid ah, fadlan like saar muuqaalkan una sheergaree asxaabtaada. magacaygu waa Shaafici Maxamuud Nuur Shaafino.